kale aan rabeen raacina waxa weeyaan dad badan baa ku muransan anshax gabadhiisii hore ee uu qabay aaway xagey ka dhacday labadiisii carruur loo dhalay aaway horta ninkaas 2 sano uu qabay gabadha ama 2 sano u dambeysayba gabadha way kala maqanaayeen oo way kala tageen 2 sano u dambeysayba anshax waxaa nin single oo raadinaya gabadh magaasayay markaa uu caalamado xabadan helo ku dhajistay marka nin single uu hayo magaasa duurkiisa iskaga jira 2 sano u dambeeyba qisada iyo magaasa sheekada iyo sababta ku kala tageen ama dul istaagayo waan dul hadaan ku leeyahay ku dul istaagay waana ku shaaciyay mar raba inaan shaaciyo aniga waa la ii sheegay si xaqiiqa si dhaba aan lagu sheegay sababta ku kala tageen waa qiso runtii adiga gaadaan hadii aad maanta dhageysato ama aad magaranaysaa in yar uun lagaaga sheekin lahaa ilmada mad cashiteen hoos bay magaranaysaa kaaga imaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنيدي سلام يا دمان صاحب قلبي غفور إذا لهات ماد بنيدي سلام يا هكا دقة دامان دقة دهان سوى مريع ميديا جروب حتى اليوتيوب channel كي كعصب تمات دعوة كعصب فضلا لايك شير سبسكرايب انت وكو قبائل يضبط مثلا تساعد قروح بدن له اي وناكسن شرفت هذا channel كوجو حنتاي runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo hees qista dhaba laga sameeyay oo runtii dadka magaasa ay baraha bulshada ba qabsatay dadka dhagooda soo jeetay dadka magaasa awlaad jacaylka loo sameeyay ee la sadad qofkaas alla loo qofkaas qof magaasa jacaylka yaqaana oo jacaylka wax ka garanaya laakiin dadka qaar xajid jacaylka dhagoolinka ah xagga magaasa dadka abaabada loo galiyo runtii hees waxa jirta uu soo saaray fanaan la yiraahdo Cabdi anshax qisada heesta iyo qisada ka dambeysay iyo sababta loo sameeyay iyo magaasa guurka ninkaasi sidoo ku dhacay waxa rabaa in magaasa qisadan dul istaagno qisa kana waan rabaa inaan ku sii daro laakiin qisada ma dhamaystiran runtii waan qarnayna qisadaas waxa jirta runtii inuu magaranaysaa ninkaasi aroos uu ku ahaa magaalada Qisadi arooska ka hor waxa jirta inuu gabadha doontay oo gabadha loo diiday gabadha imka uu guursaday oo loo diiday kadib waxa dhacday in uu tagay ma garanaysaa in ay gabadhi reerkooda ka soo baxsatay anshaxnina aan ma doonayo ay reerkoodina ku yiraahdeen anagu fanaan ku siin mayno kulana dooni mayno marka kadib markii ay saasi dhacday run ahaantii gabadhina way baxsatay 14 iyadoo gurigooda ka maqantay oo la leeyahay meel ay ma garanaysaa meel ay tagtay iyagu reerkooda ay leeyihiin show me ay wada tageen uu qaban in la yiraahdo Suldaan Seera kadib hees buu ka dhex qaaday iyadoo ku dhagdhagay adugu dee reerkii maadana dib ka social media waxa uu fashiliyay waa loo geeyay iyo qof uu geeyay nacaw waay midna waa la carray muuqaalkii uu geeyinta warka ka dhigay laakiin waxaan aqay intii waa la soo qabtay walaalkeedo dibadda ku maqnaabay soo degay uu yimi kadib uu xiray marka adugu intii xiray adugu ilaa 17 habeen markay xidhnay gabadhii ay jeelka ku jirtay ayaabay anshax la soo hadashay adugu anshax bay la hadashay kadib anshax markii la soo hadashay baa anshax marka ninka saldhiga meesha haysta ay anshax iyo ninkaas isku qabiil ah marka wuxuu gabadha saaniyo saasa jirtay qisada buu uga dhacay masaasaha ii kaale buu anaga halkan kuugu meher halkii baa loogu meheriyay kadib inantii waa maxkamadda saaray maxkamadda Gabiley baa la saaray markii maxkamaddii Gabiley la saaray ayaaba waxa dhacday in ma garanaysaa uu ku dhaartay in gabadhiisa waa loo meheriyay Soomaa wuxuu ku dhaartay in gabadhiisa tahay iska meher xad buu ahaa meher caadi kadib jijigu gabadhii ula soo baxsaday markuu jijiga ula soo baxsay ayuu reerkoodii reerkiisa u tago weydiisay markii baa reerkii la siiyay iyadoo wali family-kaasi aysan raali ka ahay oo ay meeshii duco waalid ka maqantay ayaa adigu gabadhii la siiyay oo magaasa lagu dawaayahay kurso kadib sidii waa arooskiisii ku dhacay jijigu arooskiisii ka dhacay fanaaniintii reer jijiga soo dhaweysay si sharaf iyo karaamo leh ayaa arooskii loogu dhigay wali laakiin hoygiisa dhabta imka huleel bay degan laakiin hoygiisa dhabta ma ahan Hargeys jijiga ma aha Hargeys uu waan ku soo noqonaynaa insha Allah sidoo kale qisada heesta waxaad ka dhac magaasa heesta qisada ka dhax magaraasa ka dhax bixi kartaa sida u tiri dartiiban xabsi galaya sida wax walba ugu adkaysatay haddaan afkayga kala furo aan waxa uurkii ku jiraan ugu aan sheegi lahaa uu ku leeyahay wariya walaalo waa dad jacayl wax ka taqaanina lillaah hadduu uurkiisayna kala furo lahaa dadkan ilmada ceshadeen buu weyn anaha qisadan dee aan intaas la soo marnay jacaylkan isla soo marnay haddii aan idinkaga sheegi lahaa ma garanaysaa hees baa dhihi jirtay haddaan buuga ka qoro dadka qiiroon lahaa marka dadkii baa qiirooday bay ku leedahay Allah ya ciise waa jacayl ma garanaysaa سلع يرفض بلوصو مركز الأولى تعير رفض يسلع بلوصو مري المهم هذاك ده عصب يعني كل مجلس جوابين نحن إنه أدونا نقول كودا سديد وحيل كده بكسر بحدين نكلا وميتكين هذا مجلس كوسو قاضي فاميلي كده ده كاغسو قاضي أدونا نعس نقول كودا هنو وحنا نقطة مجلس كير كيسيا مقرنا سعيد وعلى الأديكا ودور الأديكا كي قبل هيستا أنكر عينا يوم مجلس باسبور وطير هالجيم كابا باسبور بين قدينه ها كدي باسبور كم ساس هوري يعني بحبله مجلس سعيد maraykan ku yurta joogay la guursan ba waayday oo de ragii halka joogtay ma garasmo guursan ragga halka joogayo
anoo sharcigii cilmigii baan ognahay marka ayaa lagu qaaday baan kula yahay baasaboorna ka raacinanta magaasay de family-keedii reerkeedii adiga kaaga soo go'day dad adiguna maanta dayrsad ka tagto de bulshada meel ay cogsataa ma jirto inay isdisho hagaartinin ee reerkaaga hayso oo de family magaasay duco waalid ka maqatay runtii ma dhismo deeynagoo ognahay way waalidku waa xubinta koowaad waa xubinta ugu muhiimsan waa xubinta kaliya ee maanta isdhihi kariyo ee reer way ka dhismaan reerku magaanaysa way ka ulkumaan reer weeg magaranaysa de reerkaas way isku raagaan haddii waalid ducadiisa la socoto laakiin haddii waalidkii ducadiisa maqan tahay runtii reerkaasi iskuma sii raagaan laakiin waxaan leenahay de waalidkaasi kor waa waalid carooday oo usoo noqon doona magaranaysa de waa inantoodii meelna ka tegi mayso iyagaa dhalay waa inantoodii waxay dhashana de waa waalid iyo habaryar iyo ayeeyo ayay u yihiin waa awlaadoodii meel ka tegi maysan waa families ka carooday way soo noqonay waxaan leenahay run ahaantii de duco waalidna kale waa loo baahan yahay mar walbaba laakiin insha Allah way heli doonaan waalidku way iska soo magaasay caradooda markay ka soo noqdaan ayay ducada heli doonaan runtii qisada kale ee aan rabay inaan raacino waxa weeyaan dad badan baa ku muransan anshax gabadhiisii hore ee uu qabay aaway xagey ka dhacday labadiisii carruur loo dhalay aaway horta ninkaas 2 sano uu qabay gabadha may labadii sano u dambeysayba gabadha way kala maqanaayeen oo way kala tageen labadii sano u dambeysayba anshax waxaa nin single oo raadinaya gabadh magaasay de markaa uu caalamado de xabadan oo ku dhajistay marka nin single uu hayo magaasa duurkiisa iskaga jira labadii sano u dambeeyba qisada iyo magaasa sheekada iyo sababta ku kala tageen ama dul istaagayo waan dul hadaan ku leeyahay ku dul istaagay waana ku shaaciyay mar raba inaan shaaciyo aniga waa la ii sheegay si xaqiiqa si dhaba aan lagu sheegay sababta ku kala tageen waa qiso runtii adiga gaadaan hadii aad maanta dhageysato ama aad magaranaysaa in yar uun lagaaga sheekin lahaa ilmada mad ceshiteen hoos bay magaranaysaa kaaga imaan lahayd sabab uu anshax sababay maaha ama inantu sababtay xaaskiisa hore ogbaad ay sabatayna maaha ee adu waa sababa kala jira mar raba inaad magaasayda si dul istaago ama aan si shaaciyo wax garad baad iska fahmi karaysaa waa inaan walaashay isaguna nin walaalkay marka mar raba inaan qisada shaaciyo ku xaqiijinaya labadii sano ugu dambeysay in uu anshaxaanin single ah oo free ah oo dhulkiisa magaasa ka qaarawan karaya ayaa uu ahaa marka muhiim waxaan ku leenahay un de noqda reerkiina cusub ee magaasa ku soo kordhay Soomaalida de waxaan leenahay ku soo dhawaada qoysaska Soomaalida allada haydiis kala siiyo ubad khayr qaba awlaad barakaysan awlaad magaasa idinka idaan facda diinta aan facda de بريما قرنا سايمك ويدادنا حالك سيدا أدو متيسن ومتلا دي رومانتيك ها إلا واحد اللي حتى وقت جينا أنت مقرنا سيلون مرني ما كابكا أيا ده لبي تمسع عضد موقت دي عروسها ولا كلا قرني لبي تمسع على حل اسمه عرق كيدي واحد علينا تاي تتمي بي كدر ويدبا ليو ما كابكا وكبابا ويدبا سادبا ما كابكا لو ينشرح لبي تمسع عضدك مارك حاجات كده علي إندي وينه أنت تعال كين حكوا كده كده أدو يسكو ويدبا كون أدو عشان كنتي ما شاء الله ده واقع رئيس والله ما أنا اسكو فرحسن والله ما أنا استعال كدب دب بالو عليو وكل دوام سوي حبيبي استشي كيف الحال الحمد لله النعمة والشكر لله وكو استشي وانشوغا ملك عمل عادين مركا dib baa loogu ciyaadana koonfurka maakaabkii waa loo soo mariyay de waka heesa waqca ka sii arooskii reechichigo inuu ku saa caleemaha ululay si gobonimada si sharaf leh si wanaag leh ayaamay magaasayay u soo dhaweeyeen kooxdiisna nin Cabdiraxmaan oday leeyahay ma ka soo raacay laakiin kooxdiisa xidiga geeska maan arag ma sheekino qisada ama sababta ay uga hareen adu waa hawl uu fanaaneed bahad ku sii dheeraameen kuna sii fogaameen hadan ku sii fogaano anagoo fakii meel kaga dhacnay marka waxaan sheegnay inuu ninkaas la socdo garab istaagay si walaaltinimo hiliyo hooba la garab istaagay ilaa gabiile ilaa jijiga ilaa arooskiisa inuu si raganimo de magaasa ku jirto inuu ugu soo garab istaagay de waa magaranaysaa abaal ugu hayo baan leenahay adbanidi salaamiya waa murac media group oo Yaxya Cabdiraxmaan idile waqtigii waayu haydi wacnaadaan idiman ilaa saaxiibay qalbigaada igaga taalaan laakiin waqtigu bayna yar kala qariyay insha Allah muuqaal badan waan idin soo gelin doonaa te channelku sidiisu muu socon doonaa idinkuna halkiin baad nagala haysan doontaan qalbigaan idinka salaameen saaxiib magaasa ma xali gacan waa qalfoofe qalbigaan idinka salaameen qulubtan idinka jecel dhamaati baa one love guys de waxaan idin leeyahay jacaylku hadda kiyay de marxabay idinku